helista fursadaha waxbarasho ee wadamada dunida waa kuwo yaala internetka. in deeq waxbarasho aad ka hesho dalalka horumaray oo inta badan bixiya fursadahaas waxay kaaga baahan tahay haysashada dukumiintiyada waxbarashadaada iyo inaad xirfad u leedahay qorista macluumaadka laga dalbado. sanadkii 2011 oo uu Cabdullaahi Shariif ilaystay waxbarashadiisa dugsiga sare waxa uu dadaal u galay inuu ka helo fursad waxbarasho dalka Sacuudiga, taasoo u suura gashay sanadkii 2012 inuu ka helo deeq waxbarasho jaamacadda Islaamiga ee ku taalla magaalada Madiina. Cabdullaahi Shariif ayaan kala sheekaystay sidii uu ku helay iyo dadaaladii uu galay si uu u guuleysto deeqda waxbarasho. fursadan waxbarashada Sacuudiga waxaan helay 2012 aakhirkeedii. qaabkan ku helayna waxay ahayd arday iiga horeysay oo jaamacadda dhiganaysay ayaa jirta oo asxaab aan ahayn oo isku deegaan aan ahayn. ayagii ayaan ka wareysay markaan dhamaystay dugsiga sare warbixino iyo shuruudihii markay ii sheegeen. shuruudihii ayaan buuxiyey, dukumiintiyadii ayaan isku aadistay, shahaadadii iyo baasaboorkii iyo wixii markaas laga baahnaa. kadibna waxaan ku xareystay mowqaca jaamacadda oo markii la furay oo ay soo gudbiyeen xilliga ay furmayso aqbalaada. alxamdulillah sanada iga maqnayd markaan xareystay waxay ahayd 2011 12 waa la soo aqbalay alxamdulillah. waatay xarunta waxbarasho ee adiga dhigato maxaad se ka barataa? xaruntan wax ka barto ama jaamacadan dhigto magaceedii waa jaamaca islaamiya Madiina Munawwara. waa jaamacad aad u weyn oo Soomaali fara badan ay ka soo baxday oo culimo fara badan ay ka soo baxday. arday badan oo Soomaaliya oo Soomaali ka imaatay ama dibadaha Yurubta iyo Afrikadan iyo ay ka yimaadeen wax ka bartaan. waxaan ka bartaa aniga marka ugu horeysa oo jaamacadda marxaladeedii ugu horeysay oo baajka waxaan dhameeyay kulliyad shareeca. dibloma waxaan qaatay tarbiya. hadeer marxaladii labaad oo magisterkan ku jira oo idaara tarbawiya oo yani sanadkii ugu dambeeyay. ma jiraan arday kale oo Soomaaliyeed oo wax ka barto siyaabahaasi ay ku heleen waxbarashadiisa? arday badan ayaa dhigata dabcan ii sheeg qaybaha waxbarashada oo heerarkeedu kala gedsan ay wada dhigtaan. qaar ku jiro marxalad PhD ku jira, magister qaar ku jira, qaar baaj ku jira, intaba way jiraan. maxaa farqi ah oo u dhaxeeya wax ku barashada Soomaaliya iyo dalka hadda aad joogto oo kamid ah wadamada horumaray? marka ugu horeysa tayada waxbarashada hadii la dhaho gudaha iyo dibadda waa dabcan aad ogtahay tan dibadda xoogaa yara inay sareyso. kow ardayga bulshadaas uu dhexgalayo oo dhaqamadaas kala gedsan uu ku milmaayo laftirkeedii ayadaaba aqoon kala ah oo ii sheeg bulshadaas ku dhex jirkeedii wuxuu soo qaadayaa tacliinta oo akaademiga oo fasalka uu fariisanayo macallimiintu ka soo qaadanayo mooye afkaar kale iyo aragtiyo kala gedisan oo yani asaga nafsadiisa uu ku horumarin karo wadankiisa iyo dadkiisa uu ku horumarin karo ayuu arkayaa oo dhaqamo fiican ah. waxaa laga yaabaa waxaasi wadankii inuu asagana wax ka keeno khibrada. ma rajaynaysaa tacliinta aad ku soo barato Sacuudi Carabiya inaad dalka dib ugu soo laabato aad uga faa'iideyso bulshadaada? insha Allah hadduu eeba kala noqdo markaan jaamacadaha dhameysano inaan wadan ku soo noqono oo ii sheegeen ummadii aan yani ka imaanay oo dadkii aan u faa'iideyn insha Allah waan rajaynaynaa hadduu eeba kala noqdo. waan ku soo noqonaynaa haddaan soo dhameysano waxbarashadeennii. ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad la wadaagayso ardayda Soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iideystaan deeqaha waxbarasho ee wadamada dunida gaar ahaan dalka hadda aad joogto? dabcan fursadaha gudaha iyo dibaddaba labadaba way jirtaa. gaar ahaan markaan ka hadlo wadanka annaga aan joogno Sacuudiga fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed aaday u jirtaa. waxaa laga yaabaa shuruudahaasi oo ardayga matalan ay ka mid tahay shahaadada markuu dhameeyo dabcan wuu heli baasaboorka iyo da'da iyo waxyaabo yar oo aan yani saas u adkayn ayaa jiro. intaas hadduu buuxiyo wuxuu sugayaa fatro yar uu sugayo ayaa jirto oo matalan xilliga uu xareystay isla xilligaas lagama soo aqbalayo. laga yaabo sanad ama haddii kale sanatay inuu sugo. intaasna wadankuu joogaayo waxbarashada uu iska sii wato tanna uu sii sugo oo fursadaasi meesha ay taal arday badan dhigata kulli saasay ku imaadeen. loo yani laga faa'iideysto mar walba la ogaado la dabagal lagu sameeyo jaamacadaha ii sheeg scholarship ka bixiya oo lacag la'aanta ah
baladeer Sacuudiga waxyaabaha ay kaga gedisan tahay wadamada kale waxaa kamid ah waxaa ku yaala xarameynkii oo xajkii iyo cumradii oo bilaasha waxbarashadii oo bilaasha uu leeyahay arday gunooyin u gooni ah oo mukaafa uu qaadanayo oo ku filan ardayga xaajaadkiisa uu ku daboolayo waxyaabaha baahidiisa ah oo waxbarashada ah marka fursadaasi oo meesha guud ahaan wadamada carabta ay ka jirtaa laakiin gaar ahaan haddana Sacuudiga fursadaasi marka ardayda oo yani dugsiyada sare sanadkan dhameynaya ama mar walba kuwii hore u dhameeyay sanadkii hore soo dhameeyay fursadahan oo ii sheeg wadanka yaalo gaar ahaan hadda jaamacadda annaga aan dhigano maadi iyo diiniba labadaba way leedahay haddaad sharci u baahatana waa mutawafir waa alxamdulilah لأن ماشي هو منبع الإسلام أو منبع الوحي واي هدي مادي هاد أباهتان لوضع بيجرتها وجامعة أسر يو قونتو دي بيبا جامعة قاركي مركي يعني لا تصنيفنا جامعة قار عالمي وحكو جرو نمبر أسر يسوق جرايو مركي إن شاء الله وحرجينا أرضي الصومالي ذي بودهان إني كفايديسان فرصداسي أي مروا لبا إشاكو هايان الحلية أي فرمايان أقبلادا أي سو حريستان ay yimaadaan qaarna ay yani nin waliba ama qof waliba ii sheeg hadba yani meesha uu isleeyahay takhasuska uu danaynayo uu ka helayaa uu ku biiri karaa jaamacada anaga dhiganayo ma aha jaamacado fara badan jira Sacuudiga ilaa Riyaad Dammam Qasim Taif Madiina Makka kulli arday Soomaaliya dhigato marka insha Allah in laga faa'iideysto ayaa rajeynaa haddii ay kala noqdo أمبان لايت إلادا إنو كاتجينها عتوني أقربا إلى إسبوعي كتاهي أولاد كتارا دوكسيجا